horta bismillaahir raxmaanir raxiim shirkan ucid ay qabsanaysay meel buu ka soo bilaabay ujeedada shirkan loo qabanayay waxa ahayd marka hore qaladka dhacay waxa jira garabkii Jamaal Cali Xuseen berigii udub ka tagay waa kuwii tagay ucid u tagay waqtigaana ururaha la furay oo ururaha furnaa marka iyadoo ururadii lagu jiro waqtigii ururada ay tahay ayay heshiis galeen Faysal Cali Waraabi iyo Jamaal Cali Xuseen heshiiska waxa kamid ahaa in marka la ansixiyo boqol la qaybsado xisbiga golaha dhexe la qaybsado in maamulka shirgudoonka la qaybsado golaha dhexe la qaybsado ayay ku jirtay marka taasaa meesha taalay arrinkii heshiiskaasi markii xisbiga ururkii laga soo gudbay oo xisbiga yimi waxay ahayd isla markii xisbinimada loo soo gudbayba inay fadhiistaan si heshiisyadoodii iyo arrimahoodii ay u ansixiyaan dabcan golaha dhexe ayaa meesha yimi oo heshiiskaasi ku meel gaadha la isla sii qaatay laakiin urur bay ahaayeen markaa xisbiga ma filaya waxay ahayd markaa Jamaal inuu ujeedadii iyo heshiisyadii ay galeen isaga iyo Faysal waayo siyaasadda waxa siyaasadda la yiraahdo dan joogta ma saaxiibtinimo joogta ah male dana joogta danun bay leedahay joogta ah laakiin saaxiibtinimo leh marka salka waxay ku haysay halkaas ay ka soo qalloocatay mushkiladda maanta halkan timi waa mushkilad halka ka qalloocantay oo waxay ahayd heshiiskaasi in la qabto shirweynaha oo shirweynahaasi ansixiyo qaybsashada awoodda xisbiga hadday golo dhaxa tahay hadday golo fulineed tahay iyo hadday maxay tahayba waxay ahayd in lagu ansixiyo shirweyne oo si degdeg markaa ay u qabtaan bay tiimay dhicin heshiiskaasi isagoo oo qabyo ah ayuu sidiisii u taagnaa dabcan bini aadanku danaw yeelanayaa oo waxa laga yaabaa inay danihii kala baydhaan ay markaa ku wada socdeen laakiin dabarka iyo waxa isku xidhayay waxay ahayd xeerkaasoo la ansixiyo kiina qabyuha marka haddaan u soo noqdo isqabqabsigii iyo wixii muddada badan socday wuxuu salka ku keenay in maxkamad la galo in guddiga diiwaangelintu gasho oo go'aan ka soo saarto dabeetana rafcaan loo qaato maxkamadda sare dabcan maxkamadda sare xeerka xisbiga ayay ku salayso waxay tiri shirweyne degdegana 60 cisho gudahood qabsada marka qabsataan shirweynaha marka qabanaysaana way shirweynaha 10 xubnood bay saartay macnaha 10 ka xubnood ee qaban qaabadu waa isku dubridka halka shirka lagu qabanayo iyo waxa laga hadl ayuun bay isku dubridaysaa nuxurka iyo xigmaddu kumay jirin halka haddii xitaa 10 ka xubnood ee ay sameeyeen ay isku haysteen isku riixayeen meel wada fadhiyi lahaayeen wax isbedela oo siyaasi oo sameyn karayeen ma jirin waayo xisbiga shirweynihii ugu dambeeyay baa maxkamaddu xukuntay ergooyinkii ka yimi ergooyinkii waqtiga shirweynihii 2012 Soma shirweynahooda inay qabtaan inay fadhiistaan bay ahayd dabcan shirweynaha dadka imanayay Jamaal Cali Xuseen waxba ku mulahayn Jamaal Cali Xuseen waxba ku mulahayn waa laga yaabaa in shakhsiyo markaa taageeray oo xisbiga siyaasaddiisa raacay inay iman karaan laakiin ergada imanaysay ee shirweynaha ku jirtay waxay ahayd cid ka socotay markaa waa awoodii Faysal unbay saboorisi oo taageerisi way ogeydeen oo arrinka dhacay waxa weeyaan ninaan runku sheegin runku ma ooyay Soomaalidu kuma ahmaahda qaladka maanta xisbiga halkan keenay ma aha mid imika dhacay ma aha mid xisbiyo kale ka shaqeeyeen ma aha mid cid kale wadwade waa mistake siyaasi ah oo waqtigii loo baahnaa ee u taagnaa la goyn waayay taasi ahayd dabcan shirka la qabtay maxkamaddu waxay tiri waa inuu marjacna shirdoonka u noqdaa hogaanka xisbigu Faysal umbe hogaanka xisbiga la sheegay cid kale ma ahayne Faysal umbu ahaa hogaanka xisbiga marjaca iyo go'aanada ugu dambeeyay nin kala ahaa dabcan isagu maana yeeshay shirkana isaga qabtay waxa kala soo raaca oo is oran karaa marka nidaamka la eego xisbiga ururka
dee xisbiga inkastoo xeerkiisii wax laga badbedelay laakiin waxa ku jira uun in guddoomiyaha xisbiga ama musharaxu laba teeran wax ka badan inaanu tartami karin oo isu soo taagi karin dabcan marka taa tiraahdo Faysal Cali Waraabe dee laba teeran oo marna ina Riyaalo la tartamay marna madaxweyne Siiraayo la tartamay labadaa jeer baa uu la tartamay marka waxay ahayd uun oo siyaado ku ah runtii marka laga hadlayo xaqiiqda laga hadlayo musharaxnimada Faysal maanta sharciyada in la waafajiyo oo haddii sharciga xisbiga iyo shuruucda dalku ay ogoshahayna uu noqon karo haddii aanay ogolayna dee aanu noqon karin baa meeshii imanayso taasuun baa su'aal la iska weydiin doonaa oo xagga sharcigana laga eegi doonaa laakiin nidaamkii iyo procedure-kii uu xisbigu imika maray dee xisbigu waa xisbiga hoggaanka xisbiguna Faysal iyo bay ahaayeen intii garabka Faysal Jamaal la socotay dabcan waxay ku xidhnayd rajadoodu shirweynihii la qabanayay in wixii lagu heshiiyey la aqbalo iyo inaan la aqbalin dabcan dee waad garan karaysaa mar haddii la isqabtano markii hore heshiis baa la ahaayo waxa laga yaabaa haddii waqtiga aan sheegayo shirweynahan maanta oo kale la qaban lahaa iyadoo heshiis leeyahay dabcan 269 maanta 291 qof la leeyahay maanta noo bay yiraahdeen dee yeesuun bay oran lahayn maalinta heshiisna waa la ahaa laakiin markii la soo xagtay dadkii soo kala dhintay mar haddii awoodii iyo wixii oo dhamina Faysal dhinaciisa jirtay oo shirweynaha dadka imanayna garabka Faysal u wada noqonayeen dabcan Jamaal hadduu meesha fadhiis shirka tag lahaa iyo haddii 5 xubnood oo uu qortay isaga tag lahaayeen midnaba rajo uga soo baxaysay iyo wax uga soo baxay midna mu jirin bismillaah waa su'aal meesha ku jirta dabcan dee 3 xisbi qaran baynu nahay anigu ma jecli inaynu reerism iyo wax dabada gelino oo kaga jawaabno laakiin waxaan ka hadlaynaa 3 xisbi qaran oo 3 xisbi qaran ba leeyihiin taageerayaal ay gobolada dalka oo dhan ku leeyihiin baa meesha taala waxba reernimana waxba laguma miisaami karo laakiin wax weeyaan 6 gobol ee hore iyo 13 gobol ee Soomaaliland maanta ay tahay ayaa 3 xisbi dadkeeda nationka ku nool umada ku nool ay ku tartamayaan marka xisbi kaliya meel kaliya wax ka waayayana ma jiro lamana oran karo dee saameyn gaar ah bay ku leedahay kuma laha saameyn gaar ah ku yeelanaysa wadanina lama oran karo kulmiyana saameyn gaar ah ku yeelanaysa lama karo laakiin waxa weeye 3 xisbi qaran oo tartamaya oo mid waliba doonayo inuu kursiga dalka looga taliyo uu fuulo weeyaan war kulli marka siyaasad lagu tartamo ee la كل damqashooyin fara badan way imanayaan cagta hal la dhigo simiir qabta hal looga hadlo mid labaad ayaan daro waxa aanu si gaar ah waxaan u yar iftiiminaya de xisbiyadu shuruuc bay leeyihiin shuruucda meesha taala hadii iyagu ay qiimeyn kari waayaan oo ay ilaalin kari waayaan ما ها شخصية قفك الرعاة ما ها شخصية قفك التاجرية لكن وحوين شرعي بي حسبي كوي هاي مركا الله يسقبته هذا يشر وإن واحد جرى كرسا حسبيه السياسة وحيو بسلان يسا مركا قف إلى هذا شرعي دم حقبتها مركا شرعي قوي التاجرية ما هي إنش أشخاص يوم جرى صدنا جرى لقى فايدة استوسنا بسم الله فرصة رنتين أرنتها محكمته واحد بشيء يسوون إن أوركو حسبي واللي إحنا عشوا جدهود كو قبضوا دور شروينه يسيكو قبضوا إن شروينها عدة إيمانيسها أي تهاي إرجدي وجودا بس شروينها كوري أنتي فريسان يسوون نتاعي إن جودي ده قبضة إن ينعوا ولبا شنح بنود وككانوا marka dabcan waxaan oran karnaa sharciyadu marka dib loo noqdo sharci waxa noqonayo wixii go'aankii maxkamadda waafaqsan oo maxaya oo ah hadii garabka maanta Faysal de guddiga diiwaangelintu xaq waxa u leedahay inay hubiso ergadan tagtay shirka Faysal Cali Waraabe qabanayay iyo ergada tagaysay shirka Jamaal Cali Xuseen qabanayay
teebaa waafaqsan shirweynihii xisbiga ee hore marka dabcan jawaabtu waxay soo baxaysaa guddiga diiwaangelintu haddii ay aragto in sharciga waxa shirweynaha isu imanayay ama shirweynaha dad ergooyinka imanayay haddii garabka shirkii uu faysal qabanayay ay waafaqsan tahay dadka imanayay dadkii shirka yihiin dabcan dee waa tahay ku salayn karayaan baan filayaa inuu shirku fasax yahay haddii shirweynaha xisbiga ugu dambeeyey dee dadkii jamaal la jooga ee ahaayeenna dee cid caddaynaysa ee laga rabo annagu ma caddayn karno imika shirweynaha dadkii imanayay waayo dadka imanayay waxaa diiwaangelinta hay'adda diiwaangelinta ayaa u xil saaran inay hubiso magacyada iyo liiska iyaga haya marka dabcan go'aankoogu wuxuu ku salaysnaan karaa markay hubiyaan ay eegaan iyagaana dee go'aanka iyo jawaabta imika aad aniga weydiinayso iyagaa laho waxa ay marka horena u joojiyeen marka dambena u joojiyeen waxa weeye in iyaga laga ay jawaabaan laakiin anu waxaan aaminsanahay in hadba go'aankii maxkamadda shirkii waafaqsani uu sharci noqonayo